warmurtiyeedkana ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa waxa uu ku yidhi banka dhexe ee Somaliland waxa uu hore u hakiyay isticmaalka noodka $50 markii ay noo cadaatay in suuqyada Somaliland ay soo galeen noodad been abuur ah oo aanay qabanaynin mashiinada aqoonsiga lacagaha been abuurka haddaba xog ururin iyo xog waran aanu ka helnay baananka iyo hay'adaha maaliyadeed ee waaweyn ee dalka ka howlgala waxay noo sheegeen inay keeneen mashiino casri ah oo lagu aqoonsan karo lacagta macmalka ah sida awgeedna waxa uu banka dhexe ee Somaliland ogeysiinayaa baananka sariflayaasha hay'adaha maaliyadeed iyo guud ahaanba bulshooyinka Somaliland inuu banka dhexe u fasaxay isticmaalka noodka $50 ee aan been abuurka ahayn bayaanka ayaa sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu ku yidhi waxaan bulshada Somaliland ku wargelinaynaa in banka dhexe ee Somaliland uu mas'uul ka yahay daabacaadda kaydinta iyo daryeelidda wareejinta iyo bedelista shilinka Somaliland oo qura balse aanu mas'uul ka ahayn bedelaadda dollarka Mareykanka iyo lacagaha qalaad ee kale waxaana war-saxaafadeedkaasi ku saxanaa Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa.